dowladda Gariiga ayaa doonaysa inay gabi ahaanba xirto xuduudda ay la wadaagto dalka Turkiga ee waqooyiga bari dalkaasi si ay ugu hortagto taariibiyaasha. xayndaabka xuduudda ee hadda jira ayaa 35 kiilomitir waxayna sheegtay inay waqtigan doonayso inay ku kordhiso 80 kiilomitir. wasiirka wasaaradda socdaalka dalka Gariiga ayaa sheegay inay diyaar u yihiin sidii mar walba ugu hortagi lahaayeen dadka taariibiyaasha doonayo inay soo galaan dalkiisa. madaxweynaha waddanka Turkiga Erdogan ayaa si weyn loogu eedeeyay inuu si isdaba joog ah u isticmaalo qulqulka socdaalka dadka taariibiyaasha, taasoo ay xukuumadda Athens aaminsan tahay inay tahay hubka Ankara ee kula dagaasho. dhowaan madaxweynaha Turkiga Erdogan waxa uu ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha waddanka Gariiga inuusan ahayn mid aan fahansanayn siyaasadda, isla markaasi si aan wanaagsan loo isticmaalo dadka magangelyo doonka ah. sidaa daraaddeed wuxuu sheegay inuu jaray wadahadalkii Turkiga iyo Gariiga ka dhaxeeyay. waddanka Gariiga ayaa midowga Yurub adduunka u sheegtay in Erdogan uu mar kale doonayo inuu isticmaalo soo galootiga qaab cadaadis ah si limid ah sida uu sameeyay sanadkii 2020 markii uu ku dhawaaqay in xadka Gariiga ee webiga Euphrates uu furan yahay. dadka taariibiyaashana kumanaan kun oo qof ayaa u socdaalay halkaasi. tan iyo markii uu sii xumaaday xiriirka ka dhaxeeya labada dal Turkiga iyo Gariiga waxay xukuumadda Athens si weyn u adkeysay xadkeedii dhanka bariga iyo badda, ayagoo tirada ugu badneed muhaajiriin ka soo galay wadamo badan ay u dhasheen ay dib ugu celiyeen xadka Turkiga ee la wadaagaan. dhanka kale hogaamiyaasha Faransiiska iyo Jarmalka ayaa ku booriyay madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin inuu wada xaajad toos ah la sameeyo madaxweynaha waddanka Ukraine Emmanuel Macron iyo Olaf Scholz oo hogaamiyaha Jarmalka ayaa 80 daqiiqo telefoon kula hadlay Mr Putin ayagoo ka dhaadhiciyay in dib loo bilaabo wadahadaladii muddada socday. Karmenalka ma sheegin suurtagalnimada wadahadal toos ah oo dhex mara Putin iyo dhigiisa Ukraine, balse hogaamiyaasha Ruushka waxa uu sheegay in Moscow ay diyaar u tahay inay dib u furmaan wadahadaladii ay la lahaayeen Kiev. madaxweynaha Ukraine ayaa mar sii horeysa sheegay inuusan u hamuun qabin wadahadal, balse waxa uu intaa ku daray in laga maarmaan ay tahay in la soo afjaro colaadda. Israel in ka badan 1,000 qof oo Yuhuudi ayaa galay barxadda Al-Aqsa ayagoo ilaalinayaan ciidamada Israel, waxaana lagu wadaa inay socod ku maraan goobaha muslimiinta ee magaalada qadiimiga ee Qudus, ayagoo Falastiiniyiintu ka digayaan inay sababi karaan rabshado. dabaaldega calanka ayaa ku beegan maalinta Qudus ee Israel, taas oo dabaaldegaysa qabashadii ay bariga Qudus qabsatay sanadkii 1967. Israel waxay Qudus oo dhan u haysataa inay tahay caasimadeedii, taas oo ay diideen dalalka badankooda iyo Falastiiniyiinta.